kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka masraxa nolosha maanta qodobka aynu ka doodi doono waa haddii aad gabar tahay ragga lacag ma ku raaci lahayd ragoo idin kala dumarka lacag ma ku soo jiidan lahayd ama waa ragga dumarka lacagta ku soo jiita iyo dumarka ragga lacagta ku raaca waxaana iigu marti ah cali qadar maxamed iyo maryan cabdi soo dhawaada runtii arrinta aad sheegayso aad ka dhawaajiso waa arrin aad iyo aad u jirto anigana run ahaantii waan kasoo horjeedaa ma taageersani in ragga lacag lagu raaco ama dumarka lacag lagu soo jiito waa kasoo horjeedaa aad iyo aad maryan adigu in dumarka ay ragga lacag ku raacaan ma kasoo horjeedaa mise waad taageersan tahay dumarka waan ku raacsanahay inay lacag ku raacaan ragga inay lacag ku raacaan maxaa sababa waayo dumarka sida quraanka lagu sheegay rijaalu qawaamuuna cala nisaa nimanka ayaa la rabaa inay naagaha ilaaliyaan oo daryeelaan marka responsibility-gooda waa inay iska ilaaliyaan naagaha waa inay ixtiraamaan oo gurigooda iyo ilmahooda ay wax u qaban karaan oo lacag ahaan waa aabbaha inay ka imaata mas-uuliyadoo dhan inuu asaga qaado mas-uuliyadoo dhan inuu asaga qaado marka ma taas keliyaad leedahay lacagha loogu doorto mise qodobo kalaa jira qodobo kalena way jira haye adigu marka maxaa u sababeynaysaa inaad ka soo horjeedo in dumarka ay ragga lacag ku raacaan waa mahadsantaha marin way mahadsan tahay marka laga hadlaayo in mas-uuliyaddu ma ahayn maxaa la yidhahdaa wax lacag ku xiran mas-uuliyaddu waa qofka shakhsiyantiisa wax ka imaan karo waxaa macquul asagoo lacagti haayo inuusan maxaa la yidhahdaa sheeg uusan bixinaynin taasina waxay keenaysaa mas-uuliyad darro mas-uuliyaddu marka waxay ku imaan kartaa qofka wuxuu isagoo dhashay tan kaleeto in aan ragga lacag lagu raacin maxaa la yidhahdaa waa wax aad iyo aad muhiim u ah waayo lacagtan shalay timaaday beritan way dhammaan kartaa beri haddii ay dhammaatana ninkii iyo naagtii inay kala tagaan ay noqonaysaa gabadhina ay ka fogaato ilaan marka horeba la iskuma guursan kalgacal iyo jaceyl la isku qabay lacagtaas unbaa la isku guursaday lacagtii baana lagu kala tegayaa beri ka maalinna carruurtii aad dayacmayso oo maxaa la yidhahdaa aabbihiina waxba ma haayo hooyadii lacagtay shalay iyo aabbaha ku raacdayna ma haysato marka nolosha waxaa ku wanaagsan qofkan inaadan ku raacin wuxuu isaga haysto iyo waxa aad ku maqashay ambaadad ka rajeynayso marka hore qofka baro waxa uu yahayne kadib ku qaado ama uga tag warkiisa waa cadyahay cali qadar wuxuu ka dhawaajiyey in lacagta ay shalay timid berrina ay tegi karto qofkana mas-uuliyaddiisa ay ku xiran tahay shakhsiyaddiisa maxaad uga jawaabaysaa lacagta waa muhiim because gabarta she needs to be taken care of in yani la daryeelay in la daryeelay u baahan tahay marka qaar way ku adag tahay nimanka markay waxaysanin they become very intimidating they feel intimidated at home gurigana niyad uma hayaan niyadooda ma degsana marka waxay noqonaysaa inuu ninkii jaad iyo wax iska bilaabo oo aragtay they don't daruufta darteeda uu markaa bilowd u bilaabo way mahadsan tahay horta in marka laga hadlaayo xilliga haasaawaha oo gabadhan ay wiilkan lacagta haysto in amba la socoto oo asaga ay toos ula socoto ama ay xitaa mid kaleeta ay wadato maxaa la yidhahdaa ay sheegay labadooda isku wado in xaqiiq waxaan dhihi karaa gabadhaas waxaa waaye gabar maxaa la yidhahdaa sharafteeda hoos u liidayso sababtoo ah sharafteedii ha ahaato way u dhacaysaa sababtoo waan ku cilaynayaa horta waxaa marka hore marka aad barato oo maxaa la yidhahdaa ay sheeg aad yaraan ku barato waad ku weynaanaysaa waxaad ku weynaatana waad ku dhimani mar walbo haddii aad maxaa la yidhahdaa aad doorkaaga uu ahaado un inaad raadiso level sarreeyo adigoo maxaa la yidhahdaa ii sheeg level laxaada amba mid hooseeya wadi kara haddii aad level sarreysa raadiso qofkan berritoo levelka wuu ka imanaa oo levelka uu wax ka sheeg baan rabaa inaan wax ka sheego levelka markuu leeyahay gabarta waxaa arkaysaa hadda gabar shaqaysanayso oo lacag haysato oo ayada isdaberi karto yes but at the same time waxay raadinaysaa qof ayada la level ah waayo hadday gursato nin oo aan waxba haysanin berito dhiba imaanaya guriga nimanka ma aaminsano inay gabar lacag badan waxaan karto it's a problem so for that purpose I will say waxaan dhahayaa nimanka aan hadda shakhsi ahaan aniga meeshaan heerkaan gaaray waxaan rabaa qof heerkayga inaan qaato maya gabdhaha caadiga ee shukaansidoonka ah iyo kuwa guurdoonka ah kulli nin lacag la herbaa waay
We want to be taken care of. Everything comes to responsibility. wax walba wuxuu ku imaanaa responsibility-ga iyo waxaan rabnaa in daryeel noola yeelo adigoo lacag haysato maanta waxaa leedahay qof hadduu ku dhahay maanta let me take you shopping and you even have money lacag haysataa laakiin adi waa rabtaa in wax fiican lagu sameeyo gabdhaha wax fiican bay jecel yihiin in loo sameeyo and that is nature يعني gabdhaha waxay jecel yihiin in markasta shopping loo kaxeeyo in wax fiican loo sameeyo out loo wado kuwan oo idin dhahayaan lacag marabna been bay idin sheegayaan don't macnaha finally in lacag la rabta waa garta qof kale haysataa lacag siinaya meel bay ku haysataa adiga second option baad haadin macnaha xataa haddii ay tiraahdo sidaadan kugu rabaa gabdho badan oo naqaano oo reer leh oo ninna hoosta ka wataan ayagoo reer lacag daraadeed lacagta marka waa wax weyn horta aniga ma lihi lacagtu wax fiican waayo wax loo raaco lacag bis kelix ma fiicna laakiin way dhacdaa waana wax ka socdo adduun weynaha it's the reality gabdhaha waxaad arkaysaa maanta gabar la qabo ninkeeda maskiin waaye qof kale hoosta ka wadataa shoppingkeeda adduunkeedaas ku socdaa ayaaba lacagta ka imaatay ayada ay shaqaynaysa inay cidooda sii samayso wax kale iskaga dabarto mise business ku qabsato waayahay maryanay waxaa jira rag ayaguna ugu talagalaba oo yacni gabdhaha lacag kusoo jiita way jirtaa raggu qaar waxay rabaan gabdhaha inay lacag way og yihiin gabar inay lacag u soo geli inay hoos maaragtay markay lacagtu saan inay imaanay og yihiin waana reality oo dhacdo maalin walba dhacdo waay so lacag buu bilaabayaa inuu siiyo marka gabadhi dabinkay ku dhacayso maaha and then they misuse marka nimanka waxay ku sameeyaan gabdhaha saas ay lacagta ugu soo jiidaan waxay ka dhiganayaan idol camal yani gabadhan wixii ay asaga dhaha sameelay sameyn sometimes حتى صاحبي هذين أركتو مرة ومالين أدو مرة وحول بأنا كو سمينا يا ولي هاي لعقتو كبد بدينا يا مركا قوادي مستقبل أيضا جارهان قشخصي هان أدو تاس كده واجنا هذا نو حتى جرسنتا إن قبر أي ويل أما نين العكو رعد منتي سؤال هالمر إن حدي عن هذا الكاجا إن دبكعو أن دبرعو إن سوما ده كرنو قبدس أو ويل كانوا أصحاب تيجي كريبي وحي أباني دوك عليه ويبس سوما ده كرنو يعني واحد عنك هلا يعني سيدا معها أوكي إن قبر لي يبس ذي وحيل هذا هاي disadvantage وحيل هذا هاي في عن فائدوين قصاروين اللي هذا نيك العقد الوراعة عن قصاروين كبدن مرمر أنت بدن قصاروين كبدن لكن هو واحد أدونك كجيرو واحد صعود واحد دعاء ومحمله والبقرة جنواي شخصيا أهانت هذا إن نين مكون راعي لهاد العق سؤال شاس قدالة وديجانينا معناها قبلها مركز تسكر الليهن هدات أبارتنا وحلقة يا بين هذا الجواب تدهلن هذا هشنا الجواب مد الصح ده هذا هلن مركز تاس قدالة وديجانينا off the مايا off the camera وقهلنا معناها علي رك وحاجرو سنة هدايا كده واجية يبقى دمرك وقلت لك إن أي العكو سوجيتا haddiiba gabadhan uu qalbigeeda uu og yahay inuusan ku jirin maxaa ku sababaa inuu lacag ku soo jeeto maxay kula tahay in laba way baa dhici kartaan isleeyahay yani ahaan in wiilkan gabadhan damac baa ka galo si sax ah buu u rabaa wuxuuna og yahay ilaa ay maxaa la yiraahdaa in lacagtiisa ay ka aragta amba waxa uu qabanayo ay ka aragta inaysan soo raaci karin mid waa kaayo maxaa la yiraahdaa sheeg nolosheedu dhab ugu baahan yahay lacagtaas nolosheedu ku raadinaya si uu u heli lahaa iyada waa mid labaade midna siduu rabay buu ka waayay oo uu raadiyay oo maxaa la yiraahdaa sheeg amba way ka cudur daaratay amba wuxuu arkay inaysan u soo jeedin si ay isaga ugu soo jeesato oo berritana intay asaga shala ku sameeyso uga aarsado oo isagana lacagta u bixinaya macnaha aarsi ama in shabaqa ugu soo dhacdo suuqa macnaha shabaqa ugu soo dhici kadibna maxaa la yiraahdaa sheeg uu fasaxaya markii shabaqina ugu soo dhacdo arko ama maxaa la yiraahdaa in mustaqbalkeeda farageliyo ama asagoona xitaa mustaqbalkeeda faragelin maxaa la yiraahdaa kaliya qalbiga uu ka jabiyo in intaas uu kaliya uu sameeynaya sidaas ma isleeyahay laakiin in gabar sidaas ugu sameeyo ma taageersan marnaba gabadha ayadoo lacagta asagoo lacag badan siiyay
in uu kusoo xirgeliyo bay haddana yani ay u hirgeli weyn kartaa sidii uu ka rabay inuu ka helo iska dhaqaaqi kartaa soo khasaaro kuma fadhiya kaas in khasaaro uu ku fadhiyaa in qofku markii in ugaarta la aado maxaa la yidhahdaa isheeg markii aad ugaarta aado dabin baad dhigadanaysaa dabinka marna way kuugu soo dhici marna waad la waayni way dhacdaa gabdho badan oo lala waayo oo lala rabay khasaaro ilaahay ka badbaadiyey way jiraan kuwo badan oo ku dhacay oo khasaaradii ay filanayeen ama lala rajaynayo asxaabtooda ila rajaynayaan ka badan ku dhacayna way dhici kartaa marka wiilkan markii hore wuu u bareerayba khasaaraha inuu galo haddii uu waayana khasaarihii wuu galay haddii uu helana wixii way ka bixeen laakiin xoogaa wuxuu haystaa faa'iido yar oo ah oo gabar inuu dhaawacay taana faa'iido asagaa u arka maayna faa'iido ma ahan oo qof inaad dhaawacdo wax qurux badan ma aha dumar waxaa jira wiilkaas mustaqbal ahaan may u qaadan lahayn yacni way sii og tahay haddana jeebkiisa dartiisay kula socotaa waxaa keenaysa maxaa la yidhahdaa isheeg in hadba qofku waxbuu faa'iido u arkaa faa'iidada ay u aragtay iyada waxaa ah maxaa la yidhahdaa isheeg ninkan inuusan ahayn midkii ay ku libisan lahayd gabdhaha waxay jecel yihiin wax nuuray soo maaha midkii ay ku libisan lahayd oo jid kala mar lahayd inuusan ahayn way qiyaasanaysaa xitaa markii ay bixaysa outan uma wadanaysa isaga waayo macnaha waxay ogtahay inuusan kusoo baxaynin laakiin in waxay ku libisanayso ay outinka ku aadayso waa isaga jeebkiisa isagane danka ma lahan in outing loo wado keliya noloshaas asaga uu heli karo ama uu hantin karo oo maxaa la yidhahdaa ishig uu ka fikiraya gabdho waxaa jira raggu ayagu ay sii og yihiin in asaguna uusan rabin ayadana aysan rabin haddana la isku danaysanaya asagana uu ka gelayo inta yartay la joogto ayadana ay ka gelayso lacagtay ka helayso so maaragtay dhibaato halkeed le maaha intii maaragtay lacag iyo nuur la isku raaci lahaa oo asagina uu danaysanayo ayadana ay danaysanaysa horta waa dhibaato jirto oo bini'aadamka dhan haysato wiil iyo gabarbo waa la isku danaystaa inta badan waa la isku danaystaa laakiin aniga danaysiga ma ogoli in la sameeyo laakiin wax dhaco oo wax socdo waaye danaysiga dhib badan buu keenayaa because adiga niyadaada waxaa leedahay qofkan uu foolxun yahay ma rabo lacagtiisa bisaan rabaa asagana wuxuu leeyahay aniga qofaan waqti la qaata bisaan rabaa just for that because selfish ala noqonaya markaas labadeenabo faa'iidana ma keenayso tan guurka markaa u imaano adigu waxaad sheegtay inaad taageersan tahay oo keer ama daryeel ay ku helayso ninka lacagta le inuu guursado hadduu waqti u waayo ka waran daryeelka ay haysataa muxuu yahay nuurka horta waan raadinaa sax waaye wax fiican nolol fiican inaan ku noolaanina waan jecelnahay laakiin hadday imaato inuu ninkii dan ii hayo waqti ii hayn anigu markii horeba danaysi baan ugu qaatay ninkan lacag bisaan u qaatay soo ma aha waqtigiisa uma baahnin waa gartay lacagta laftirkeeda meelaha iskama tataalla mogtahay waa inaad asaga weydiisaa isagiina su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay maxaad ku qabanaysaa reasonkay usoo raacdeena ma ahan jeceel iyo waxay ku faraxsan tahay waa lacagtiina shuruudaha hor yaalla shuruudaha waad ka bixi kartaa bas masruufka ciddaa u sheegi kartaa waxaasaa jiro hadduu waxaasoo dhan isagii ka warqabo women are smart these days been bay sheegaan inta badan hooyadii isbitaal la seexiyaa beyba hanas ruuxii dhacayaa sheegay ani ma sameyso so marka siyaalo badan oo ay lacagta nimanka uga qaataan baa jirto women are very smart than men way ka aqli badan yihiin nimanka naagaha saas ogaada nimanyaha cali adigu waxaad ka soo horjeedaa in gabar ay nin ku raacdo lacag marka shukaansiga la joogo gabadhu waxay ninka lacag uga qaadanaysaa si ay isu qurxiso marka isqabaana isla joogaanna waxay lacag uga qaadanaysaa si ay isu qurxiso haddii lacag jirinna qurux ma jirto marka maxaa u diidantaa horta quruxda lagu sheegayo in dhalaalka wejiga ka muuqda iyo kan dharkaaga ka muuqda ma aha in quruxda lagu sheegaa markii reer la noqdo oo gabadhan iyo wiilkan ay isguursadaan oo ilaah calaf iskugu daro in waxaa loo baahan yahay midkood kan kale inuu daryeelo oo maxaa la yidhahdaa uu ka taxadaro maxaa la yidhahdaa isheeg uu ka fakaro caafimaadkiisa maxaa la yidhahdaa isheeg maanta haddii uu ku arko xoogaa maxaa la yidhahdaa stress inuu weydiiyo in maxaa la yidhahdaa isheeg qof walbo macnaha inuu ogaado meesha laga haysto ama xitaa mararka qaar isagoona weydin inuu dareemi karo xitaa
taa waxay ku iman kartaa marka hore inaad kalgacayl labadiina isku qabteen laakiin labadiina kaashiya dan haddii idinka dhexaysay labadiina cidna cidda kale ma dareemayso qofkan gurigu soo geli uu ka bixi danka ma lihid maxaa la yidhahdaa isheeg in waajibkii oo diiniyan unbaa gudani maxaa la yidhahdaa isheeg sidaada baad ugu hayn taasna wax wanaagsan ma aha gabadhan waxaa loo baahan yahay in ninkeeda inay ka fakarto xilliga uu maqan yahay iyo xilliga uu imaanayabo ninkana sidoo kaleeta markuu maqan yahay xitaa xaaska ay guriga joogto inuu waxaa loo baahan yahay isagana uu ka fikiro xaaskiisa laakiin haddii uu og yahay gabadhan inay isaga maxaa la yidhahdaa aysan u baahnayn keliya ay lacagtiisa u baahan tahay xitaa isaga ma soo wacayo jaaniskii uu iida siin lahaa uu farxad kula qaadan lahaane waxaa macquul ah inuu gabar kale kula haasaawo badanaana way dhacdaayo ragga lacagta badanaa lagu raaco dumar kaleeta way haystaan sidaan aaminsanahay aad iyo aad waayo wuxuu ogyahay tan inay kaash ku raacday midda kalena kaash buu ku doonanaya halkaa ii joog maryan haye point waan ka qabaa meeshaas sidaa sheegto waay nimanka naagaha oo nimanka waxba haysan guursadona sidoo kale waa ayagana they have others oo lacag siinaya sida hadda sheegaysid nimankii oo lacagta lahaa waxay haystaan naago kale soomaati dhihin aad iyo aad sidoo kale dhankeenana taas waxaan dhihi karnaa ma garan in tan beddelkeeda simbiri ragga waxaa la yidhaahdaa in dumar lagama celin karo waa sidaad aaminsantihiin in dumar badan ay aaminsan yihiin wayna dhacdaa maxaad aaminsan tahay maryam meel lagu qoray kitaab lagu qoray ma laha rag baa naaga badan bis jeclaanayo waa inuu dagaal in anigu maba dhihinba way jeclaanayaan keliya jacaylka horta waa qofka nafsiyan hal qalbi buu qabaa hal qof buuna jeclaan karaa wixii ka soo haro rag markii la yidhaahdo waa wax dareen iyo damac ay keeneen in waa kaasa ninkan oo faqiirka ah hal mar in wiilkan faqiirka ah markii uu ku qabo xitaa haddii uu gabar kale u hayo jaaniska aad isaga ku helaysood waqti walba aad kula kulmayso midka lacagta le kulama kulmaysid tusaale markaad isku dhacdaan wiilkan oo maxaa la yidhahdaa wax aanan haysan wax badan wuxuu ku bixinayaa waqti badan sidii uu ku raaligelin lahaa halka kan kale aysan waqti ku qaadanin inuu lacag ku bixinaayo waxaa kaloo jirta arrintaas haddaan kasoo dhexgalo wiilal waxaa jirto waxba haysanin oo weli hal dumarna ku ekaanin they have other women also halihii lacagta uu soo helay maantana waxaa laga yaabaa tii inuu kaa jeclaa tan kale uu siiyo adigii meesha maxaa ku yaala jaaniska ninka aan waxba haysanin ay gabar usoo raacayso waa yaryahay inay muuqaalkiisa kusoo raacda laga yaabo laakiin nin gaari wato labiskiisa classic ee gabdhahoo dhan indhaha ku haayo ma dhihi karnaa taas sax waa yani asagaa ka jaanis maya ma dhihi karno asagaa ka jaanis badan jaaniska qofku qofka kala siinaya waxay ku xiran tahay qofkan ma lacag lahaa oo ma lacag lahaan gabdhaha soo approach garaynayaan sheega oo soo raadsanaya waxaan ka wadnaa cali wuxuu yidhi yani tan hadda la joogto uu qabo lacagay kusoo raacday soo maha gabdho badan oo bannaanka waxaa jooga asaga lacagti le kusoo raaco uu og yahay inuu maaragtay soo jiidasho samayn karo kan laakiin faqiirka ah midda reerka u joogta ma ahane midda kale bannaanka soo raadsanaysa isaga way yaraan kartaa because waaba nin tiisa la daala dhacaya mogta yani cali qodobkiisan kuu kala dhigdhigaya okay ma dhihi karno kan oo faqiirka ah hal qof uu ku egyahay sidaan sheegay way marxata ka hor waa raadsan karaa isagaba kuwa waxaa diyaar u ah si oo beenta maxaa sidaan kuu sheegay gabdho oo naiva jirto waxba garanaynin nuurkan oo kala baxsaneen oo iska daacade tii buu raacay adigii marka maalintii kale soo raacday waxaa laga yaabaa inuuba ku jecleen waqtigaadii uu dadka la siini karo marka ma dhihi karno kan taajir kan maskiinkan waqti fiican ka heli mase attention badan ka heli compared to kan lacagta leh shukaansiga marka hasaabaha intuu socdo siaad adigu hadaa sheegtaa hataa hadee mid ku qanacsanta been bay u sheegtaa tiri yani mid kaleeto oo waxay haysataa backup ah macnaha gabdhaha in ay mar walba midka ay haystaan mid kaloo lacag leh ay ku lamaaniyaan horta ra'yigayga shukaansiga waxaa waaye qof labadan qof there is no commitment qofkan hadduu lacag ku siiyo asaga hugu sadaqaysta wax
it's not like marriage aroosko kale markii isla reerko kale ma aha reerko kale daryeela lagaga baahan yahay laakiin labada qof oo isla socoto isla sheekaysanayso hadduu ninka u garto inuu wax siiyo mase ay gabarta inay weydiisato waa muhiim because gabartii she has to be beautiful she has to look nice for him laakiin asi kaligiis maahan oo rag kale shukaansanaysaa lacagtii asaga ka qaadana shopping ku samaysanaysaa waxaa laga yaabaa waqti ka taa in la siina maanta la dhahaa waxaan haysanahay ya waan ku taageersanahay gabdhaha iska noolaada marin dhan bay u badanaysaa in horta maxaa la yidhahdaa shukaansiga in gabadhu sidaad ka dhawaajiseenba maxaa la yidhahdaa iyadoo wiil wada mid kaleetana wadi kartaa ragguna waa sidoo kaleeto iyagana way wadi karaan waayo qofkan qof oo dul taagan ma jirto adiga ma aaminsan tahay in shukaansiga lacag lagu bixiyo intay haasaa waayaan in ninkan lacag laga qaado ma taageersan tahay ragga qayb ka mid in laga qaado waa la qaadaa waxaan u soocay maxaa la yidhahdaa ii sheeg qof walbo in fikir buu wataa iyo maxaa la yidhahdaa qaab buu wax ku basarsado ninna afkiisuu wax ku dhacsadaayo maxaa la yidhahdaa ii sheeg uu gabadha kula joogaa midna wejigiisuu kula joogaa midna jeebkiisuu kula joogaa marka kuwa in jeebkooda wejigiisa isagaa qurux badan oo gabadha iyadaa daneynayso raadsanayso midkanna wuu war badan yahay oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg sida qalbiga loo dego aada u garanayaa taana gabadha iyadaa u baahan mar kaleeto maxaa la yidhahdaa midkanne jeebkiisa baa dhaqaalo fara badan ku jiraayo mar saddexaad gabadha u baahan marka saddexdoodaba gabadha way u baahan yihiin iyagana sidoo kaleeto oo maxaa la yidhahdaa baahi haddii aan la isku qabin la iskuma imaan lahaynba marka soo maxaa la yidhahdaa isheeg gabdhuhu midba jaanis bay aragtaa in gabadhan waxay ka dhawaajisay gabar daacada baa jirto gabar walba daacad bay tahay laakiin mid bay daacad u tahay ragga qayb ka mid in laga qaado waa la qaadaa waxaan u soocay maxaa la yidhahdaa ii sheeg qof walbo in fikir buu wataa iyo maxaa la yidhahdaa qaab buu wax ku basarsado ninna afkiisuu wax ku dhacsadaayo maxaa la yidhahdaa ii sheeg uu gabadha kula joogaa midna wejigiisuu kula joogaa midna jeebkiisuu kula joogaa marka